waxaad ogaataan dadku waqti yar baan leenahay qof walbana ajashiisu ku dhimanaya laakiin qofka waxaa asala inuu isagu marka hore isxisaabiyo intuuna xisaabta kala gelin walaalkeen allaha u naxariisto inteennana waan garanaynaa muxsin buu ahaa qof walba wax tarayay shalay haddaan u baahnayn maanta isaga inoo baahan waxa ugu horeeyaan samaynayna waxay tahay horta bari in la cafiyo waxbaa lagu jiraa dadka waxbaa ka dhexeeya carab iyo daan baa u dhow isqoomaan marka hore ilaahay dartii inaan u cafino wixii wax adduunyaha ku sheeganaya qaan sheeganayaan ehel baa jooga mas-uuliyiin baa joogta way soo gudbisanayaan intaan markaan ka tago waxaad ogaataan waxayna sugayaa waa qabrigaas aan u shaqaysanna isaga shaqada maanta inoogu muhiimsan waxa weeyaan qof walba marka aad subaxa aad marka qabriga lagu geliyo adiga camalkaaga unbay noqonaysaa waad ogtiin xadiiska rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qofku markuu dhinto camalkiisa u go'a saddex waa kusoo hadhaysa maxay noqonayaan saddexdaas waa walid saalix oo u soo duceeya oo muxuu noqonayaa marka hore haddaad tarbiyadiisa hagaajiso marka dambe adigu wax ku taraya iyo sadaqa jaariya maanta ehelkiisa iyo wiilkiisa iyo caruurtiisa iyo hooyadii iyo kulliga walaalkii qof muxuu tari karaa geed yarood abuurtaa uga muhiimsan wax walbaad samayso masaajida dhagax ugu dartaa asalo iyo cilmi naafica intaynala gudbayna maanta aan samayn karnaay waa inaan ilaahay u barin oo aan cafino midnimadu ka shaqaynayay waan garanaynaa inta dhibaato aan soo iyo doorka uu cabdiqaadir ku lahaa marxuumkaasi anaa garanaya maanta qof walba anaa uga dhowaa anaa garanaya wuxuu ka tegey marka aan iscafino ilaahayna aan barino isagana ilaahay aanu